السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليق كوسو دوادا بندقة شارب الشو وأمر والبا وركي وقدم بيي دالكين الصومالية هذا كان كلا صعوتان حداتك عصبتهاي جانلكا ان سبسكرايبكا هورا أسار سياد مر والبا ويكوسو دعان برنامجيدا تايدا له شارب الشو aan soo sideyno haddaba barnaamijka caawa soo qaadanayno waxa weeye iyadoo aan la soconno magaalada Gurceel oo ah caasimada labaad ee ganacsiga marka kalkacay laga reebo ee Galmudug in ciidamadii dawladdu ay maantay hareereeyeen oo dhanka gobolka Hiiraan ama Hirshabeelle ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka soo galeen saddex qaybood oo kalena ciidamo dhow Soomareeb ilaa Cabud Waaq ilaa dhinacyo badan ka yimidna ay caaway magaaladii Gurceel ay ku hareeraysiin haddaba ma ka baaqsan kartaa Galmudug dagaal halkaasi ka dhaca ciidamada Macalin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir ay hogaaminayaan ma laga yaabaa in ay u turaan dadkooda maatida ah iyo magaaladooda in wax dhibaato ay soo gaarin oo halkaasi ay magaalada Faruujiyaan oo ay baneeyaan inta ciidamada dawladda Galmudug iyo ciidamada huwanta ah ee federaalka Soomaaliya ka socda aysan halkaasi soo gelin haddaba wararkii ugu dambeeyay oo halkaas naga soo gaarahaya Sharib Show TV wuxuu sheegayaan in odayaasha dhaqanka ay caaway dhinac walba iskaga yimaadeen oo ay ku sugan yihiin magaaladaasi Gurceel ayagoo la hadlaya Macalin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir oo hoggaanka ahlu sunna ah kuna qancinaya inay iskaga baxaan deegaankaasi oo si nabad ah ay iskaga baxaan dagaalna uusan magaalada uusan ka dhicin dadkii maatida ahaa iyo shacabkii ka qaxayna magaalada ay dib ugu soo laabtaan oo halkaasi ay yimaadaan wararkii ugu dambeeyay oo kala soo gaarayna waxay sheegayaan in xagga isgaarsiinta magaalada Muqdisho odayaal dhaqameedyo xildhibaano iyo senataro ka tirsan maamulka Galmudug State ee ku jira dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ayaguna halkaasi sheegeen in ay kula xiriireen maamulka iyo odayaasha ku sugan Gurceel maamulka ay hogaaminaya Sheekh Shaakir iyo weeye ahlu sunna wal jamaa haddaba su'aashu waxay tahay maxaa faa'iido ah oo sunna wal jamaa ugu jira maamul dhisan oo nabad ahaa in lagu soo abaabulo oo halkaasi ay weerar ku soo qaadaan arintaasi ma ahan wax ay ummadda Galmudug ay ugu dul qaadanayso iyo shacabka Soomaaliyeed inta samaha jecel sababtoo ah nimankani waxay ku noqdeen fowdo iyo qas waa sunna wal jamaa maamulkaasi Galmudug iyadoo aan dibna ka soo sheegi doono cidda soo hubaysa ama cidda soo abaabusha oo ka dambaysa inay mar walba qasaan maamulka Galmudug State hadda ka hor Sheekh Shaakir iyo Macalin Maxamuud dawladda Galmudug ee madaxweynihii hore uu hogaaminayay Axmed Geelle Ducaale Xaaf waxaa la siiyay madaxa koobaad ee xukuumadda Galmudug waxaa la siiyay wasiiradii ugu badnaa wasiir ku-xigeenadii maamulka hoose ee Galmudug waxaa la siiyay xildhibaanadii ugu badnaa intaas oo dhan way ku qarci waayeen dadka shacabka ah ee Galmudugna inta waxay ku hayeen duruufo aad u xun iyo dhibaatooyin ay markaasi hadba ay ugu horeyso iyagoo oo dhaqaalihii Galmudug dhulka la galay hay'adihii gargaarka caalamiga ah oo halkaasi mashaariic ka fulin waayay maamulkii dawladda dhexe ee federaalka ah ee Xasan Sheekh ilaa Farmaajo ilaa iyo dawladda kumeel gaarka ah Sheekh Shariifna ay halkaasi soo gaarsiin weyday agabadii kala duwanaa iyo adeegyadii dawladnimo ee looga baahnaa gobolkaasi inuu ka faa'iideysto sida maamul goboleedyada kale ay uga faa'iideystaan haddaba insha Allah biidnillaahi kariim waanta caawa socota oo bishu ay tahay 17 Oktoobar 2021 oo la rabo in dagaal lagu baajiyo ayadoo halkaas ciidamadii dawladuna ay dhinac walba magaalada Gurceel ka hareereeyeen qoladii sunna wal jamaacana ay difaac ka galeen magaalada gudaheedii oo dadkii shacabka ahaa isaga qaxeen in waantaasi qaabka u shaqeyso iyo nimankan Galmudug lagu soo saliday ee sunna wal jamaa in ay aqbalaan in ay magaalada iskaga baxaan la soco ku xirno barnaamijka Sharib Show insha Allah biidnillaahi kariim mar walba hadaad ku cusub tahayna subscribe ka saaro si aad mar walba aad inoo socotid oo barnaamijyadeenu ay kugu soo dhacaan
waxaad leenahay meel walba joogtaan iyo xil walba joogtaan waqtigu ha idin wacnaado. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.